dalxiiska suuqa xoolaha yaa socda lacagaha la iska diyaari ninkii saaxiibkay ahaana inuu wax barta ayuu xafiis fadhiya anigana saan ayaan gaari daaqad u haystaa walla adduunka ninba maalin ayay u kuftaa 4,000 ka yar ma jirta haddii aad EVC balas tuureysana waa 15 senti maxaad iiga soo eegaysaa dameer yahow madaxa qumbaha leh aniga 2,000 ayaan wataa dameer yahow wejiga fircoon kale yaa aaway kan le 2,000 ayaan wataa maxaa ku soo saaray gaariga wasaqyow dhagaha bakaylaha leh kada gaariga haddii uusan 4,000 bixinin inooga deji gaariga shidaalka ayaa qaaliyo xageen ka keenna lacag anaga soo dagoryaa maxaa naga soo eegaysaa war ka soo gaariga yaan meesha kugu soo gelin dameer yahow madaxa cambaha leh kirishbooyga dhale ma aniga ayaad saan ii gelaysaa qofka aan maanta saan u caynayso waa aniga soo maaha xaafadan saad ooga shaqaysan lahayd ayaa la rabaa ma qabaystow dhalay waan isbaranaynaa ani adiga kana muxuu ahaa wixii kaftanka ahaa ayuu run mooday taliya ninkan suuqa xoolaha ayaan ka soo qaaday lacagta baska inuu bixiyana waa diiday waryaa ma dadka inaad shaqadooda ku ciyaarta ayaad keentad ku dhidheysha dadka hadda fanaanada sii bay ninkas dheel samsamay balisa runtagaal balisa subax wanaagsan ku soo dhawaada hoteelka naga hello maqadka ayaa ka xun wax hello waa ku maqlaa ku soco adigoon cawashadayda dhageysan miyaad mobilka ugu jartay sorry mudane waxaan joogaa Nairobi waxaan rabaa inaan u socdo dalkii Soomaaliya ma ka helayaa 4 qol oo dabaq ah oo aan degna aniga familkayga ka hor inta aanan u duulin haa mudane wax walba waa diyaar marka hore magacaaga mudane magacayga waa Jinne Togte hadda ma Nigeria ayaa joogtaa maxaa ka qaldan Kenya ayaan joogaa ayaan ku yiri waa maxay Nigeria sheegaysa miyaad waalan tahay maya mudane shaqada ayaa ii wareerisay wax hagaaji ayaan lahaa dhimala taas meeqa ciyaal ayaad haysataa mudane 5 ciyaal ayaan haystaa imisa gabar imisana wiil 3 wiil iyo 2 gabdhood okay 3 wiil imisa laba 3 wiil ayaan ku iri maxaad adiga jinni ma kugu jira imisa laba maxaa liirada okay imisa dumar ruuxu maxaa ka qaldan war 2 gabdhood ayaan wataa baan ku iri waa maxay gabdhaha aad sheegaysa amradi oo amrad kale miyaadan waxba baran mudane wiilasha lama wada noqon karaan maxaa yeelay waxa jiro kuwa ay gabdhaha dhaamaan kuma fahminiyo waxa aad leedahay ka fiirsaniyo aniga ilmahayga caynin ma wadataa burus muxuu ahaa buruska aad sheegaysana maadaama aad badintihiin madax ayaa idinka garaacaya suu qolka idin deeq niyahow adiga madaxa miyaa laga jira aniga marka dhakhtarkii ugu dambeysay madaxayga cinda kuma jirin oo fiicnaa adiga iyo xaaskaaga 2 sano ayaad isqabtaan xageed u wadaan 5 cunug waxaad iska daa adiga niyahow mi ii helaysaa 5 qol ayaan ku weydiistay aniga kuma fahmayay igu dhib maamulihii meesha waa la iri cirka ayaa lala galay wariya madaxii waa maxay waxaad sheegaysaa waa kay maamulaha la iriyood sheegaysaa adiga ma ahan mudane wuxuu i weydiiyay maamulihii hore ee meeshan kuma aha maamulihii hore ee meeshan maamulihii ugu horeeyay ee meeshan yeelato waa aniga maxaad ka hadlaysaa waxaan ka hadlayaa mudane maamulihii hore ee meeshan ka hor inta aan laga dhisin hoteelka waxay ahayd bangi wuxuu i weydiiyay maamulihii hore ee meeshan marka kaas ayaan ka hadlayaa waraba jinni baad qabtaa adiga maamulihii ugu horeeyay meeshan waa aniga mudane suuq horta waan heshiinaa qof ayaa qadka ku jiray haye la hadal haa mudane cilad jir ayaa dhacday si wad sheekada xagee noo mareysay balaayo waalan baa faraha ila soo gashay si fiican xagee noo mareysay horta adiga xaas miyaad leedahay haa misaaxaas ayaad leedahay aniga hal xaas ayaan leeyahay waxaan ahay nin ballanta ilaaliya mee dheer tahay mise way gaaban tahay raalli haw adiga maxaa faaraha isku geliyay mudane waraysiga ayay ka mid tahay su'aalaha iga jawaab aniga qol ayaan ku weydiiyay maxaa naagtiida faaraheeda ku geliyay mudane su'aalaha la isweydiiyay ayay ka mid tahay hoteelka haye bal way dheer tahay